beerista dhirtu waxay qayb weyn ka qaadataa soo celinta bilicda iyo quruxda deegaanka waxayna ka hortagtaa nabaad guurka iyo isbeddelka cimilada. Ciidanka BSF ayaa mar labaad maamulka degmada Xarfo ku wareejiyay 500 oo geed. qaybo ka mid ah bulshada iyo maamulka degmada Xarfo oo dhirtan kala wareegay ciidanka BSF ayaa ka warbixinaya muhiimadda ay dhirtu u leedahay deegaanka iyo sida ay degmadu uga faa'iideysatay dhiraynta magaalada. Bismillah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaan salaamayaa dhammaan bulshada halkaan isugu timid ay ka mid yihiin xildhibaanada golaha deegaanka degmada Xarfo iyo ciidamada BSF oo saraakiil leh anaan kala magacaabin waa maasan yihiin. Halkaan waxay noogu keeneen 500 oo geed oo kala wareegnay. Waxaan u maleynayaa inaysan hadda kaliya ahayn dhirta hadda magaalada ka cagaaran waxa keenay BSF. Markaan runta inii sheego ciidamada dhawaan ka hor maba aaminsanayn BSF ciidamo aan inay jiraan. Anigu ciidamada aan ugu kalsoonida badnahay bay ahaayeen marka anoo shacab ilaa haddana sidii baan ahay. Aad baan ugu diirsadaa aragooda iyo muuqooda. Garabkiina Allah galan leena wayni ducaynaynaa. Dhirtana sida aan kala wareegnay waxaan jecel lahay inaan uga miro dhalno oo aan beerno aad aragtaan quruxdooda iyo isbeddelka hadda ay ku soo korin doonto hadda ay aad macnaha beerteen oo soo aragteen cagaarkeeda iyadoo ka sii badanna waa arki doontaan insha Allah. Waxaan jecel lahay inaan sida aad noogu dhiibteen uga hawlgalno waana mahadsantihiin waan salaamaya. Bismillahir rahmaanir rahiim. Ilaahay ma mahad iska leh meeshan suuqay keenay anagoo maamulkii degmada Qanasxay Sheekh Xarfo xildhibaanadii waxgaradkii iyo sidoo kale ay noogu yimaadeen oo aan uga gudoomino ciidanka BSF 500 oo geed waxaan la soconaa inay ciidanku ku maasan yihiin sida wanaagsan oo ay amniga iyo quruxda deegaanka iyo horumarka qranaysa bulshada qaybaha kala duwan hawshaas oo dhan ugu aastaysan yihiin una taagan yihiin aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. waxaan leenahay qranaysa shaqada haysan ajar iyo xasanaad Allah inaga siiyo wax ka soo wanaagsan oo aad qabanaysaana waa shacabka iyo maamulka iyo bulshada reer Puntland waa inay ogsoon tahay waan inaga mahadcelinaynaa si kala yaab leh geeduhuna iyo horumarka kala duwan oo qranaysa xayshi Puntland ka socda waan ku amaanaynaa cid walba oo qranaysa ka qayb qaadatay anagu hadaan u nahay xildhibaanadii iyo maamulka degmada Xarfana waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa qranaysa geedaha noo keenteen in badan baan qranaysa inaga baranay inaad horumarka qaybaha kala duwan oo aad keenteen oo degmada qranaysa iyo degmooyinka kalaba si gaar ah degmada Xarfo waan inaga mahadcelinaynaa waan soo dhaweynaynaa si kala yalaaban ayaan insha Allah jecelnahay geedo hore oo aad beerteen oo deegaanka keenteen iyo horumar kale oo aad deegaanka ka qabateena ayadana qranaysa maxay sheeg waan ogsoonahay bulshaduna qranaysa maxay sheeg way inaga mahadcelinaysaa mar walba annaguna si gaar ah waxaan rajaynaynaa geedaha inaga gadoonay inaan quruxda iyo deegaamada hoostaga qranaysa degmada Xarfo iyo bilicda inaan insha Allah ku maangeeyno oo qranaysa maxay sheegaan talaalo oo mas'uuliyadda aan la wareegno oo aan qaadno. waxaan rajaynaynaa insha Allah geedku wuxuu leeyahay ajar tiro badan. nabiga cali maxadiis wuxuu ku yiri qofku markuu qranaysa maxay sheeg saacad ugu dambeeyay soo marayo geed ha beero macnaha waxyaalaha qranaysa meeshii marka dareemisid muhiimadda marka geedku leeyahay beeristiisa iyo waxtarka bulshada uu leeyahay mar waxa uu leeyahay qranaysa maxay quruxdii buu leeyahay oo ka qayb qaadanaya sidoo kale mar qranaysa anfici kale sidoo roobka kale geed waxyaalaha soo jiitu ka mid yahay sidoo kale geedku waa la harsadaa hoy buu noqdaa oo sidoo kale miruu bixiyay mirahan qranaysa maxay bulshada iyo cayayaanka iyo shimbiraha inta qranaysa waa intifacsadaan waa qootaan marka waxtarkaas uu leeyahay si gaar ah inaga mahadcelinaa insha Allah boqolkiiba boqol ciidamada BSF geedaha noo keeneen waxaan ka rajaynaynaa insha Allah inaanu ka faa'iideysano si wanaagsan muhiim uga faa'iideysano marka dhamaantii waa mahadsantiin insha Allah. boqola aan keenay oo inoo gudoomeen maamulka degmada xildhibaanadii intaas waxaan u baahanahay in la beero oo la xanaaneeyo oo magaalada la geliyo oo deegaanka oo dhan la gaarsiiyo haddii Ilaahay idmo intaana ma noqon doonto oo shaqada tan muddo dheer bay socotay muddo 10 sano ah bay BSF waday inay beerista ka waraysa boosaaso oo saxara ahay sida laga dhigay Garowe afro Xarfadan oo keenay hadda ka gaalkacyo BSF waxa ay soo dhaweynaysaa oo ay dhiirigelinaysaa cid allaale cidii danaynaysa inay ka qayb qaadato soo celinta bilicda iyo la dagaalanka nabaad guurka deegaanka inay diyaar ula tahay dhirta noocyadeeda kala duwan.
kala soo xiriir emailka iyo lambarada hoos ku qoran.